haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe belka on ka dhig waadna ku mahadsan tahay sida wacan aad waqtiga noo siiseen mahadsanidin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waan idin salaamay walaalay meel baad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada channelkeena Ladan Lifestyle. walaalana maanta video kale idin wado oo dhanka beauty-ga ah marka insha Allah walaalahayga saan hore idinku sheegay baan aniga Sunday kasta ayaan video idin duubi doonaa insha Allah ama Axad duulaha ka hadii inta kala jaanis aydan waan isoo gelin doonaa. maanta waxaa idin wadaa neem oo herbal ama geed talaal sababta qaantiin geed talaal daawo laga hagaajiyay saabtiin company-ga Lianora productigiisa marka uu soo gudbiya marka neemka asigana wuxuu idin faa'iideynaya dadka nabraha waaweyn qabo dadka nabraha dheecaamaya qabo kulli idin faa'iideynaya haaraha sidoo kale aad ay uga dagaalamo waxyaalo badan ay idin faa'iideyn doonaan sidoo kale dadka oo haaraha aad meelahan uga dhigay ama inta geesahan ama inta indhaha hoos agtooda kulli kaga dhigay aad ay uga caawin doonaan ilaahay karaan noqdo insha Allah hadana aan tijaabino anigana oo idin tusaya qaabka marsan lahaa saas ugu darsan lahayd kulliba sidoo kale hadda u baahan tahay oo naga soo xiriiri kartaa lambarkayga wuxuu ku qoran description hoose video walba oo Lianora quseeyana insha Allah waxaa idin ku soo qori doonaa lambarkiisa kor title-ka ayaan ku soo qori doonaa ilaahay karaan kan raal noqdo hadduu codkayga gaaban yahay ama xabab ku jirto oo waan helbsanahay hadda dhow ayaan inta ka soo qabay soo marka insha Allah aan gudaha videogeena socod wanaagsan. walaalay waa kana neemtan waaye waa organic waa Lianora insha Allah isku qasana caag ani dhamaad uu iga siiyahay marka ani ahaan hadda qashis qaad kaliya igu filan waayo kaligay waaye wajiga ayaana marsanaya ilaahay karaan noqdo sidoo kale waxaa marsan kartaa qoorta haaraha haduu kaaga jiro waxyaalo badan ayay ka saacideynaysaa haduu ilaahay karaan noqdo insha Allah. sidoo kale waxaa jirto dhuxul ayadana dadka xasaasiyada qabo waxaa jirto kaleeto galey mid la dhahayo ayadana whiten oo dabiici ay ku siinaysaa jacjac wajiga ku jirana way ka qaadaysaa insha Allah. soo hashaqaada ujeedab intaas ay noqotay geedkan geed talaalka kaliya ma ahan waxyaalo badan ayaa ku jiro oo dabiici ah oo wajigaaga qurux kaaga dhigayo insha Allah waa marsanaya socod wanaagsan insha Allah. insha Allah walaalay waa kana waa marsanaya duu ilaahay karaan noqdo faa'iideysi waan kule insha Allah. dad badan oo hadda isticmaalay qof wax ka soo sheegay maanan arkin qof walbo inuu soo amaano oo faa'iidadeeda uu soo sheego moogi qof dhaay maanta intuu qaatay dibkaas kala kulmay ma jirto habeen dhaxdaas marka live ku jira gabdho badan ayaa idhaahdan adiga ma tijaabisay walaalay horta waxaa ogaateen qof markuu wax idin soo bandhigayo yani asigoo tijaabinin idin soo bandhigayo sida xaqiiqda ah xitaa dhar Allah ka dhigo qofka markuu dhar xitaa ku soo bandhigayo koodor inuu asiga soo gashto uu xirto waxtarkooda uu ogaado de qurxiin de isteeliin intaba markuu qofku uu ka warqabo ayuu bulshadiisa u soo bandhigi karaa. soo ani ahaan ma jecli wax aniga aan tijaabinin ama aan arkin dadkayga inaan u soo bandhigo mar walba wax idin soo bandhigayo wax xaqiiqsanaatiin wax aniga aan isticmaalay ama wax faa'iidadooda aan arkay inaan idin soo gudbiyo lagama yaabo wax aniga aan ogeyn waxay yihiin inaan idin soo gudbiyo waayo maantaas aniga aan lacag idinka raadiyo oo wixii aan idin soo gudbiyo waxaa ka xun dibka iyo sumcaddarada ay iga soo gaarayso because lacag wixii ay tahay maahan laakiin waxaa muhiim ah wajigaaga ayaa passport ah soo wajiga hadda iska haleysin wax faa'iido ah maba kuu lahan marka mar walba waxaa wanaagsan waxa adiga inaad tijaabisid sida xaqiiqda oo Ilaahay kula ogyahayna inaad u soo gudbisid intaad views raadinaysid ama lacag raadinaysid bulshadaada wax
qaldan looma soo bandhigo. Marka insha allah walaalaheena idinkan ka faa'iidaysi waxaan aniga hadda wuu ii qalalayaa wax oo daqiiqadaas u badan maan adiga waay haddaad rabtid waxaa ku haysan kartaa 20-30 in daqiiqad adiga aad rabtid. weekdiin waxaa kugu filan inaad isticmaashid 4 mar sida ugu fiican 4 mar inaad isticmaashid ugu fiican. haddii waqtigaagu uu yar yahay ama qof oo guriga u badan ahayne weekdi waxaa isticmaali kartaa 3 mar ama 2 mar inta adiga nifaas jaanis ay haysid. soo marka aniga hadda wada ii qalasho 20 ama 30 aan ku hayn hadda ii qalasho waa iska dhaqaa insha allah. walaalahayga waa kana waa isku soo laabanay waa iska soo dhaqay aniga hadda 30 minute ayuu ii marsanay. marka adiga ay ku xiran tahay daar 30 daqiiqo ay ku marsanaan kartaa haddaad rabtid 30-40 saab hadba yacni saa waqti u haysid ayaad u marsan kartaa. iskuna day haddii oo adiga qof guri joogo aad tahay weegi inaad 3 mar 4 mar intaba isticmaali kartid. haddii qof iska mashquulsan like me aad tahayna waxaa kugu filan 2 mar 3 mar 1 mar xitaa okay waayo weegi yama jimco ama axad dadka badnaa intaasay guryaha joogaan. soo intaas dhan ayaad isticmaali kartaa. haddana waxaa idinkaga sii tagaya kheyr iyo caafimaad insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.